maantay xaaladaha la helay maantay waa 24 saac la soo dhaafay waa 13 qof weey 10 lab ah ama rag iyo 3 dhadiga Somaliland waxa laga helay 8 Somaliland waxa laga helay 8 banaadirna waxa laga helay 5 isku darkooda marka waa 13 da'du maantay labada kaliya aad ugu badan tahay da'da 20 ilaa 39 waa boqolkiiba 77 laakiin da'da 40 iyo 59 jirtaana waa 23 boqolkii marka halkaas boqolkii boqol ku tahay maanta laba hayo 20 jir ka yar labana hayo 60 sano jir iyo ka badanba maanta lama hayo dhimashadu maanta waxay ahayd wax dhimasho maanta ma jirin alxamdulillah wax dhimasho maanta ma jirin tirada guud ee dhimashada wadanka dhanna waa 67 awal hore loo sheegay waxa ka bogsatay 12 qofood maanta tirada guud ee dadka bogsaday waa 265 qof walaalayaal maanta haddaad u fiirsataan ilaahay idinkiis banaadir waxa laga helay maantay 3 haddaad ogaa jirteen bilii u horeeyay March iyo April iyo bilowga hore May oo dhan banaadir hada jeer aad u badnaa jirtay hadda waxa ku soo xusanayso soo socota waa Somaliland halkaas waxay cadeynaysaa iyo goboladii kale wali ma hayno oo halkan kuma jirto hadda geerida ka dhacday midna cadaada laga sheego kale kuma jirto halkan sababtoo ah ma cadeyn karno inuu ahaa COVID-19 iyo kale laakiin hadda waxaad ogtiin maanta gurmad xoog laha baxay gurmadkaas wuxuu wadaa baaritaan soo sameyn doona wixii ka soo baxa kadib halkaas cadaada imaad laakiin galmudug weligeedba waa ku jirto laynka kama maqnayn taas waa qodobka jira qodobka kale oo aan rabaa inaan ku daro waxay tahay hadda cudurkii xamar baa la yiri wax laga cararo xamar cudur baa ka dilaaca laga cararo waxay keentay cararidii inay gobolada u gaaray oo gobolada maanta uu si fiican u hayo kaysaskiina badan yihiin waliba iyadoo wacyigelintuna aysan wali si fiican uga hirgelin laakiin waxaan rajaynaynaa wacyigelintu markay si fiican uga hirgasho oo ay dadku ay qaataan talada ay qaataan way wax imaan doonaan fiicnaanta ay gaari doonaan waxaad ogtihiin dadku haday dhagaha ka fureystaan wacyigelinta haddii dhagaha laga fureysto ya waxa imaan doona in dad badan ay jiradaan oo dad badan cudurka uu ku dhaco ayaa imaan doonta dad badan marka cudurka ku dhacana awoodii caafimaadka ee daryeelka caafimaadku waxaan cabsi ka qabnaa inay ka jawaabi weyso waxa soo dhan haddii marka wacyigelintu la qaadan waayo oo lagu dhaqmi waayo waxa imaanaysa in dad badani uu cudurka ku dhaco hadduu dad badan cudurka ku dhacana awood uma heli doonaan kaadiriinta caafimaadka iyo goobaha caafimaadkuba inay dhammaan dadkaas ay qaabilaan oo wax u qabtaan oo awoodooda ka badanaysa marka qodobka jira waxa weeye wacyigelintu waa number 1 waa udub dhaxaadka cudurkan wax looga qaban karo haddii ayada la waayo haddaan sugno inuu dadka dhan ku soo dhaco waxa halka imaan doonta in awoodii daryeelka caafimaadku uu hoos u dhaco arrinkaas dhimashada marka ay badato maanta waxaan milicsaday oo gadaal u milicsaday dhammaan dadkii dhintay ayaan gadaal u milicsaday waxa ku jirta dadkaas waxa idin sheegaya 7 qof kaliya ayaa 40 sano ka yar 7 qof kaliya ayaa 40 sano ka yar inta kale waa dad konton jir iyo ka weyn hadda walaalayaal aan xusuusano marka halku dhagi ahaa dhalinyarada ku wajahna dhalinyaradi ku wajahna oo dhalinyaradu ayagu difaacoodu waa fiican yahay war dhalinyaro isjira cudurkii ha qaadan dhalinyarada waliba cudurka gobolkooda haday neef qabaan haday dhiikar qabaan haday sokor qabaan haday TB qabaan waa ku dhici kara ayaga laftigooda oo meel xun buu gaarsiin kara oo dhalinyaro badan waxaan aragnay oo runta ilaa iyo 40 bari oo wali cudurka hayo waa haynaa hadaba waana dad dhalinyaro maxaa jira cuduradaas kale ay qabaan waa ku xun laakiin dadka waayeelka geesoo ka garaacaya marka hadalka aan xusuusano ahaa dhalinyaro adna isbadbaadi waalidkaana badbaadi ha noqon dilaaga daahsoon arrinkaas waxa cadeynaysaa maanta markaan gadaal u bilicsanay dadkii dhintay inta 7 qof kaliya ay noqdeen dadka dhalinyarada ah laakiin inta kale waa yeelin hadda marka waxaan rabnaa suwaajibna saaran maahan inaanu waayeelkeena ya inaanu badbaadino waayeelkeenu waa waalidkeen waa aabe waa hooyo waa awoow waa ayeeyo waa habaryar waa qaraabo ya waa dadkii wadankan uu ku dhisnaa oo waagi hore uu ku dhisnaa u soo halgamay waa dadka
dhaqaale hadduu jiro maanta iyo wanaag hadduu jiro ilaahay ka sokow ayaga loo tirinayo weeye waa marka waajibna saaran dhalinyaradu waxaan ka codsanayaa mar kale inay xilka qaataan dhammaan shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa walaalayaal cadawgaana soo weeraray aan meel uga soo wada jeesano oo dhagihiina fura oo wacyigelinta ka imaanaysa kaadirinta caafimaadka iyo inta bulshada wax garata ka imaanaysa ya hala maqlo waa la yaabana hadaan la maqlin waa arkaynaa maanta raadkeedu meeshuu nageyn doono maalinba meel buu ka soo bixi doona maalin gobolkaas ka soo bixi doona maalin degmo ka soo bixi doona waxa lagu soo sheegi doona intaas qof meel hebla ku dhimatay intaas neeftiya ku dhigtay intaas xagga jirta maalin kasta marka waa laga fiican yahay in meed la tiriyo Allah u naxariiso inta dhimanaysa intuu mari karo waa maraya laakiin dadaala la yiri wala tulqu bi aydiyakum ila tahlukati wa ahsinu inna la yuhibbul muhsinin wa ayat quraan weeye wareedahay xadiisyadii aan xusuusano hashaadana dabro ilaahayna tawakkal hasheen dabrashadeedu waxay tahay inaanu gacmaha iska dhaqno inaanu afka maaska ku qaadano inaanu kala fogaano inaanu masaajidka daangalayno aan salligeena anagu wadano musalleena wadano inaan guriga ka soo weyseysano in meelaha musqulaha iyo lagu weyseysto dhan la xiro in iskuulaadku waa xiran yihiin waa ogtiin maxaa intaas diyaaradii waa xiran yihiin waa ogtiin maxaa intaas dhan dhaqaalaha waxa dhaqaalaha iyo mustaqbalka dhalinyarada taabanaysa maxaa loo sameeyaa waxa loo sameeyaa waxa weeye in la yareeyo faafitaanka cudurkan walaal waxa raba halkii qof wuxuu gaarsiin karaa 3 qof halkii qof 3 qof bal ku dir 3 halkii qof 3 buu sii gaarsiinaya marka waa logarithmic progression kor u sii aadaya ilaa uu anaga dhan na saameeyo marka waxaan codsanaynaa oo marsana ku celinayna waxa weeye dhagihiina fura wax maqla waliba dhalinyaradooy dadaal badan aan idinka rabaa waxa la idinka rabaa inay mas'uuliyad qaadaan oo naftiina u qaadaan waalidkiina u qaadaan qaranka u qaadaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh